Abiy Ahmed Cali oo nebinimo sheegtay qaar badan oo Itoobiyaan ihna aaminsan yihiin inuu nebi yahay halka kuwa Soomaali ahna iyagu aaminsan yihiin inuu Abiy nin muslima yahay. Waxaan halkan idinkula wadaagaynaa mowduuc aad xasaasi u ah kaasoo ay nagu kaliftay kadib markaan aragnay dad iimaan la'aan kursi jacayl iyo dana siyaasadeed awgood uga baxay diintii ay haysteen oo ninkan waalan ee beenaalaha ah waa Abiy Ahmed ee aaminsan diinta beenta ah isagiyo xulufadiisuba haddana iyagoo arka inuu macatab xidhan yahay oo isku kaajo ku sheekeeya oo weliba isku daya inay dadka khaldaan kana dhadhiciyaan inuu Abiy yahay nin aaminsan diinta Islaamka. kuwaas waxaa ka mid ah dad caan ka ah deegaanka Soomaalida oo u eg culimo laakiin aan culimo ahayn meelna ka soo gelin. haddaba si aan u fashilino dadkaas iyagoo og inuu Abiy sheegtay inuu nebi yahay haddana muslimka ku sheegaya waxaa jira in tan iyo maalinkii Abiy xilka loo dhiibay inuu dhammaan khudbadihiisa ku soo daro tusaalayaal diini ah oo uu ku saleeyo qorshaha uu markaas rabo inuu qabto ama uu horeyba u qabtay. wuxuu markasta soo qaataa ama daliishada qodobo uu ka soo qaatay qisooyinka buugga Bible-ka ee Kiristanka ku qoran si uu dadka Kiristanka ah ugu tuso in waxa uu qabanayo yahay waxay diinta Kiristanku ogoshahay oo xagga Eebbe isaga laga soo amray. arrintan ayaa waxaa fashiliyay nin indhool ah oo la yidhaahdo Tewodros Gaye iyo naag la yidhaahdo Maryamawit oo labadooduba ah dadka lunsan ee haysta diinta Kiristanka gaar ahaan madhabta Ortodokska kuwaasoo iyagu aaminsan inuusan jirin nebi ka dambeeyay Nebi Ciise calayhi salaam ayaa waxay aad ula yaabeen oo ay beenaalayaal ku tilmaameen saddexda qof ee kala ah Burtukaan, Christian iyo Adrianos oo si cad u sheegtay nebinimo kadibna Abiy ku sheegay inuu nebi yahay. waxayna indhoolaha iyo Maryamawit maalmahan dadka Itoobiya u soo bandhigaan muuqaallo ay kaga hadlayaan Abiy iyo sida uu diinta Kiristanka ugu shaqaysto iyo inuu sheegtay nebinimo been la maluqay ah oo xishood darro iyo yasitaan uu qabo dadka awgeed uu saddexdan tuug ee kala ah Burtukaan, Christian iyo Adrianos Abiy ku yidhi waxaa dadka Itoobiya u sheegtaan oo aad ka dhaadhicisaan inaan ahay nebi si ay ii maqlaan oo ii aaminaan dadka haysta diinta Kiristanku. waxaan si cad oo aan wax dheeraadihii ku jirin idinku soo dhigaynaa meesha Abiy sida beenta ah looga dhigay inuu yahay nebi uu Eebbe sidii Nebi Daawud oo kale u doortay inuu dunida maanta la joogo badbaadiyo. waxaa jira inay dadkan sheegtay diinta Kiristanka oo ah dad lunsan oo been ka sheega Nebi Ciise calayhi salaam ku sheegaan inuu Ilaahay yahay. haddaba sida aynu la soconno dadka haysta Kiristanku waxay u qaybsamaan firqooyin dhowr ah oo laakiin wada sheegta inay Kiristan wada yihiin. waxaanuna ka soo qaadanaynaa firqooyinka ugu waaweyn dalka Itoobiya sida Ortodokska, Katoliga iyo Protestantiga iyadoo Protestantigu yahay firqada uu Abiy haysto. waxaa jira saddex qof oo aad u been badan oo ka mid ah kuwa aaminsan firqada Protestantiga ama Bentega oo la kala dhaho Burtukaan, Christian iyo Adrianos kuwaasoo kiniisado haysta sheegtana inay yihiin nebiyo loo soo diray inay badbaadiyaan Itoobiya. waana kuwa ninka Abiy la yidhaahdo waalay ee ku sheegay inuu nebi yahay intay khuraafaad shaydaan u soo sheegaan oo ay leeyihiin waa naloo waxyooday. marka waxaan idiin soo dhigi si aad uga bogataan waxa ay ku hadlayaan iyo sida ay u lunsan yihiin iyaga iyo Abiy annagoo wadan leh oo kaliya inaan tusaalayno si ay ugu cibro qaataan dadka aaminsan in Abiy yahay nin diin leh oo Islaam ah kuwaasoo qaarkood xataa masaajidda deegaanka Soomaalida kaga sheekayaan muslimnimada Abiy ee waxba kaba jiraanka ah. qaar ka mid ah shacabka deegaanka Oromaduna waxay dhahaan Sheekh Xuseen ayaa horey ugu riyooday inuu Abiy iman doono meesha qaar Kiristan ahina ay sheegaan inay kiniisadu horey ugu riyootay inuu Abiy ra'iisul wasaare noqon doono. si taas la mid ah Abiy wuxuu sheegay marar badan inay hooyadii ugu riyootay inuu boqorka toddobaad ee Itoobiya noqon doono. kooxdan shayaadiinta ah waa Burtukaan, Christian iyo Adrianos waxaasoo been ah waxay u sheegayaan waa kaliya inuu Abiy xilka sii joogo intay dadka aaminsiiyaan inuu yahay nin Ilaahay doortay oo aysan aadmigu qiimeyn karin. waana qorshe Abiy iyo shayaadiintani isku og yihiin oo uu qandaraasyo malaayiin dollar ah ku siiyey inay Itoobiya weyn ka dhacdhiciyaan nebinimadiisa.
bal haddaba ila dhegayso qayska naadiyaanos ah oo kooxdan shayaadiinta ee abiyi biilo ka mid ah waxa uu leeyahay ዓለም ዙሪያ በሙሉ ላላችሁ በሙሉ እኚህ ጠቅላይ ሚኒስተር የተመረጡት ራሱ እግዚአብሔር ነው የመረጣቸው ራሱ እግዚአብሔር ነው የቀባቸው በህዝብ ፍላጎትም የተሾሙ አይደሉም ራሱ እግዚአብሔር ልክ እንደ ዳዊት የሾማቸው ልክ እንደ ዳዊት የቀባቸው ታያላችሁ እግዚአብሔር በሳቸው አልፎ በጣም ለአእምሮ የሚገርም የሚደንቅ እጅ በአፍ የሚያስጭን ታላላቅ ስራ እሰራለሁ አለኝ dadka Itoobiya dhageysta waxa ila hadlay buu yiri Ilaahay oo ii sheegay inuu abiy yahay nabi uu isagu doortay sidii uu horay ugu doortay nabi Daawud oo kale abiy ma aha buu yiri nin bini aadam doortay waxa doortay oo boqoray oo nabinimo u doortay Ilaahay oo waliba aniga ii waxyooday waa sida uu hadalka u dhigay Ilaahay ayaana ii sheegay buu yiri inuu abiy soo dhaxmari doono oo uu sameyn doono waxaysan dhagi maqal oo aysan il bin aadam arag oo qalbi bin aadam lagu sawiran karin marka waa inaad sidaas u ogaataan buu leeyahay qayskani in abiy yahay nabi eebbe soo diray sidii nabi Daawud oo kale sidaas darteedna aad rumaysan ወደዛ ፓርት ዞር ብዬ ባያም ማለት ነው እኔ ባቅ ማቀው ማለት ነው ዶክተር አብይ ብቻ ነው ማቀው ኦርደሩን አላውቅም ከታች ከላይ አላውቅም አሁን ግን በጌታ መንፈስ የሰማው ነው ያለው እግዚአብሔር እንዲህ አለ ዶክተር አብይ ነብይ አደርጋለሁ አለኝ ይሄን ሰምቻለሁ ሃሌሉያ ያለ እንዲህ ነው በውበቱ ብቻ አይደለም ማለት ከዚህ በኋላ በኢትዮጵያ ላይ የሚሾመው አለ በተለይ ቦታ ይሄዳል አለ አንድ ቦታ ነው ቃል ያወጣል አለ በዙሪያ በጣም ብዙ የሚጸልዩ እናቶችና አባቶች አስቀምጣለሁ አለ እሱ የማያውቁ ሰዎች ያደራጃለሁ አለ ninkan labaad ee shayaadiinta nabinimada sheegtay ee saddexda ah ka midka ah abiyina nabiga ku sheegay waxa la yiraahdaa Christian waxa uu leeyahay waxaan eegay dhankaas oo aan u sii jeedsaday kadib waxa ii waxyooday Ilaahay anigu xilligaas abiy waxaan u aqaanay in la dhaho Dr. Abiy oo kaliya laakiin wuxuu isgaabeerkii oo uu ka wado Ilaahay ii sheegay buu yiri inuu ninka abiy la dhaho uu u doortay nabi marka waa inaad rumaysan ayuu leeyahay waxaana ka mid ah buu yiri waxyiga inuu isgaabeerku Ilaahay buu ka wadaay igu yiri buu yiri iska badaayo waxa uu idinka baahan yahay ma jiro oo waxaan abiy raaciyay haween duceeye naagtan oo Burtukaan la dhaho oo shaydaamad weyn oo nabinimo sheegataana waxa ay leedahay Ilaahay ayaa ku doortay oo nabi ayaad noqon doontaa iyo mas'uulka maanta maray abiy u ducaynaysayna waxay tiri waa la ii waxyooday Ilaahay waxa uu ku leeyahay abiy maxaa kugu dhacay waayadan waxa ka muuqda qalbi jilaac iyo naxariis waa maxay heshiiskan la sheegayo Ilaahay wuxuu ku leeyahay wax heshiis ah qaadanin waa inaad dadkan xun ee Tigreeg ah aad u muujiso arxan darrtii ugu xumayd si dhaqso ahna u jooji calool jilaaca ይምሮ ላይ አስተሳሰብ ላይ አመለካከት ላይ በኢየሱስ ስም የተመታ ይሁን በጌታ በኢየሱስ ስም የፈረሰ ይሁን አሜን waxa kale oo ay ku leedahay Ilaahay wuxuu ku leeyahay naagtaada ha aaminin wala adeegsanaya oo xafiiskeeda aad isaga bad dhanka kale waxaan idin la wadaagi sida uu abiy oo diinta Kiristaanka firqada Protestantiga ama Benteega ah haysta uu isticmaalay qisadii Fircoon iyo Nabi Muuse calayhi salaam iyo sida ay u fashilinayaan in Daltawadros iyo Maryamaawit oo labadooduba ah Kristaan gaar ahaan haysta madhabta Orthodoxka iyagoo ay labadooduba lunsan yihiin oo aysan wadadii saxda ahayd haynin haddana balaynu eegno sida ay u qiimeeyeen maruu abiy ka hadlayay shirkii baarlamaanka ee degdeg ahaa ee uu kaga hadlayay sababaha uu ciidanka militariga Itoobiya uga soo baxay deegaanka Tigray ayaa wuxuu sababahaas ku sheegay inay ahaayeen si ay shacabku beeraha u beertaan maadaama oo xilli roobaadkii la galay iyo inuu siiyay waqti ay ku fikiraan shacabka Tigray sidii ay uga go'aan gaari lahaayeen TPLF marka waxyaabahaas beenta laga soo tago wuxuu si dadban abiy u sheegay in ciidamadiisa lagu jabiyay dagaalka deegaanka Tigray oo ay TDF ku abaabushay shacabkii oo dhammaan ka hor yimid ciidankii
sidaas darteed waxaan leeyahay ayuu yidhi oo aan soo qaadan qisadii fircoon iyo nebi muuse calayhi salaam wuxuuna yidhi ama uu isaga iyo ciidankiisa ku matelay inuu la mid yahay oo kale ciidankii nebi muuse ee markii ay fircoon ka guulaysteen ee uu nebi muuse xaqiiqadii kaga guulaystay fircoon iyo sixirkiisii kadib qoomkii nebi muuse ay tallaabeen badda ee uu fircoon kaga daba yimid baddii si uu u dhibaateeyo qoomkii nebi muuse ee kadib la halaagay qoomkii fircoon ልክ የእስራኤል ሕዝብ የሚያልፍበትን መከራ ሁሉ አልፎ ከግብጽ በወጣበት ጊዜ እስከ ቀይ ባህር የተከተለውን የፈርዖንን መንግስት የሚያስታውስ ነው። አርፎ ካይሮ መቀመጥ ሲገባው ቀይ ባህር ድረስ ተከትሎ እንደተዋጣው ማለት ነው። የእስራኤል ሕዝቦች ሲያቋርጡ የፈርዖን መንግስት እዛው ቢቀመጥ ኖሮ ችግር አልነበረው። ተከትሎ መሄዱ ነው ጣጣ ያመጣው። አሁንም ቆም ብሎ ማየት ጠቃሚ ነው ብዬ አስባለሁ። አብይ sida aad maqashaan waxa uu leeyahay haddii fircoon uusan ka daba imaan lahayn nebi muuse iyo qoomkiisii lama halaageen marka waxa uu hadalkan ciidankiisii ku tilmaamay inay la mid yihiin ciidanka nebi muuse oo kale ciidanka Tigreega iyo shacabka Tigrayna waxa uu ku tilmaamay inay la mid yihiin ciidankii fircoon ee markii uu fircoon ka daba yimid nebi muuse iyo qoomkiisii kadibna ay badda ka gudbeen qoomkii muuse ee ay badda soo galeen qoomkii fircoon eebe isku dharbaaxay baddii ee sidaas lagu halaagay qoomkii fircoon sidaas awgeed anigu waxaan ahay ciidankii nebi muuse ayuu abiyi ka wada marka Tigreega oo ah ciidankii fircoon haddii ay iga daba yimaadaan waa la halaagi dadkan uu abiyi fircoon ku tilmaami waa dad uu wadooyinkii taleefankii laydhkii biyihii iyo baadkiiba ka xidhay oo uu gaajo iyo dawla'aan rabo inuu ku dilo shacabkii ka badbaaday kufsigii xasuuqii isirsifaynta ahaa ee uu sheegay inuu deegaanka Tigray oo dhan ka dhigay ama la ekeysiyey tuuladii yarayd ee uu sheegay inuu ku dhashay bashaasha abiyi markii uu axmaarada la hadlayay wuxuu ugu bishaareeyay inaysan ka cabsanin Tigray dambe waayo uu yiri waxaan la ekeysiyey bashaasha iyadoo daba socota qisadaas ayay waxay Maryam Maawit leedahay abiyi iyo ciidankiisa ayaa ah ciidankii fircoon waayo ciidankii abiyi ayaa waxay quuseen ama ay ku dhamaadeen deegaankii ay weerareen oo abiyi iyo ciidankiisu waa fircoon Tigreeguna waxay taagan yihiin booska nebi muuse si kooban haddaan kuugu jilciyo abiyi wuxuu saddexda shaydaan ee kala ah Burtukaan Christian iyo Arianos oo saddexduba nabinimo sheegta mashruuc ku siiyay oo ku kharash gareeyay inay dadka diinta Kristanka haysta ee Itoobiya ka dhaadhiciyaan inuu abiy yahay nabi loo soo diray badbaadada Itoobiya si Itoobiyada Kristanka u aaminto xilkana uu muddo u sii joogo cid ka qaadi karta ama la xisaabtami karta oo aadmihana aysan jirin haba yaraatee mashruucan in muddo ahba waxaa wada saddexdaas shaydaan wuxuuna ka socdaa baraha bulshada ee khaasatan beentayga ama Protestantiga Itoobiya leeyihiin waxaase inuu abiyi nabinimo sheegtay oo qorshahan saddexda shaydaan wadaan inuu abiyi ka soo fulay oo uu maalgeliyo fashiliyay oo toosh dheer ku daba qaatay nin indhool ah iyo gabadh Maryam Maawit la yiraahdo oo iyaguna diinta Kristanka gaar ahaan madhabta Orthodoxka haysta waxaa intaas dheer inuu abiyi qisadii nebi muuse calayhi salaam iyo fircoon ee qoomkii fircoon lagu halaagay nebi muuse calayhi salaam iyo intii raacdayna lagu badbaadiyey uu ku micneeyay in isaga iyo ciidankiisu ay booskii nebi muuse calayhi salaam ku jiraan maadaama oo ay deegaanka Tigray ka soo baxeen Tigrayguna ku jiraan kaalintii fircoon oo haddii ay ka daba yimaadaan ay badda ku qarqan doonaan hadalkaasna waxaa dhanka kale u rogay oo macneeyay Maryam Maawit oo kooxda abiyi ku tilmaantay inay booska fircoon ku jiraan halka Tigrayguna badda gudbeen oo dagaalka guushiisa iyagu hayaan ciidamada abiyina jabiyeen isku soo wada duubo abiyi Axmed oo la wada ogyahay inuu Kristan Protestanti ay yahay islaamnimadana ka ridoobay oo murtad xun yahay kuna faana kristaannimadiisa
waqtigan xaadirka ana sheegtay inuu nabi yahay oo mashruuca shaacinta nabinimadiisa uu u xilsaaray shayaadiinta aan sare ku soo xusnay isla markaana ay firqooyinka kale ee kristanku fashiliyeen inuu nabinimo sheegto kiniisadahaasna uu isagu maalgeliyo ayaa waxay Soomaali badan oo deegaanka Soomaalida caan ka ah qaarkoodna culimo sheegta murtad abiyi ku sheegaan inuu muslim yahay iyagoo dana adduunyo iyo iska dhaadhicin si ay kooxda cagjar wax uga helaan darteed hawshaas u sameynaya taasoo waa la iiga cilmi badan yahay khatar gelin karta iimaankooda hadiiba ay iimaan lahaayeen meeshana ka saari karta sheegashadooda diinta islaamka indhoolka iyo gabadha iyaguna kristanka ortodokska ah ee fashiliyay nabinimada uu abiyi sheegtay waxa kale oo ay sheegeen in buugga madamar ay diyaariyeen abiyi iyo saddexdiisa shaydaan ee kala ah Burtukaan Christian iyo Adianos kuwaasoo ku tilmaamay bay dhaheen buugga madamar inuu yahay kitaabkii abiyi samada looga soo dejiyay loo soo dhiibay ee uu dalka ku badbaadin lahaa ugu dambeyn waxa isweydiin mudan dadka noocan ah ee islaamnimada sheeganaya murtadka kristanka ahna islaamnimada ku sheegaya oo dadka ka dhaadhicinaya waxa ay diinteena suubani ka qabto culimada deegaankana waxa looga baahan yahay inay dadka u ifiyaan mowduucyada taagan si aan juhalada loo khaldin ogaadana culimoy in Allah idin weydiin doono